الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ولا ليال وحين إن شاء الله تعالى إسكاد ما يسترنا حديث كيني يقدم بالنبي صلى الله عليه وسلم لويديي سؤاشي مهم كايد وواحد maxaa iga gelinaya jannada naartana iga fogeynaya nabiga sallallahu alayhi wasallam ahadiiska si weyn ayuu uga jawaabay hadeer waxaynu insha Allah taala u fadhinaa halkan inaynu soo gabagabeeno inta ugu dambaysa hadiiska oo leeyahay muhiimad iyo macno weyn ku fadhida oo nabiga sallallahu alayhi wasallam markuu uga jawaabay su'aashi oo uu ku yiri jannada waxa gelinaya salaadii soomkii ilaahay subhanahu wa ta'ala ina kaliya caabudid in ilaahay subhanahu wa ta'ala dariiqiis ku toosnaatid waxyaabaha weyn nabiga sallallahu alayhi wasallam markuu ka soo jawaabay oo u sheegay hadana wuxuu raaciyay shay weyn oo macnaha dadku maanta aynan u arag wax weyn inuu yahay laakiin xaqiiqatan wax weyn sababtoo nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu ku yiri ala akhbiruka bimalaki dhalika kulli waxa ku hantiyeysiinaya oo amalka wanaagsan adigu si aad u lahaatid ku keenaya ma ku sheega bala ya rasuulullah sallallahu alayhi wasallam wuxuu ku yiri asxaabigii haaye ii sheeg wuxuu ku yiri kuf alayka hada arabkaagan iyo lisaankaagan qabo oo xumaanta ka qabo wanaagana sheeg arabka marka la qabto waxa weey marka xumaanta ka qabatid wanaagana ku sheegtid laakiin hadii aad xumaanta ka qabatid wanaagana aad ka qabatid oo wanaagii aad ku sheegi weydid waxa ogaataa taas qabasho lama dhaho oo waxa la dhahaa alladhi yatakallamu bil baatil huwa shaytaan walladhi yaskutu anhu wa yastami'uha fa huwa shaytaanun akhras ka ku hadlaya baadilka iyo xumaanta waa shaydaan laakiin ka dhageysanaya ka aamusan aanan qofka ku dhahayn iska daa waxaas waxa weeye waa shaydaan dhagala oo uu ka sii daran yahay shaydaankii kale caadiga oo nabiga sallallahu alayhi wasallam saas ayuu asxaabiga ugu jawaabay oo wuxuu ku leeyahay waxa weeye waa carabka qabo asxaabigu wuxuu ku yiri oo miyana loo qabanayaa nabi Allah sallallahu alayhi wasallam waxa aanu ku hadlano miyana loo qabanayaa waa sidaas cilmigu asxaabigu muu garanayn asxaab far badan ayaana garanayn waxaas oo kale ama in loo qabanayo waxa ay ku hadlayaan laakiin nabiga sallallahu alayhi wasallam muu baray asxaabtuna saas ayay ugu jireen inay cilmiga bartaan macnaha maanta qofku markuu la yaabo jawaabta asxaabiga ama su'aasha asxaabiga ee kale miyana loo qabanaya waxa aanu ka hadlano qof haduu maanta qalo macnaha uu la yaabaya wuxuu dhahayaa waa asxaabigu sidee buu jahil uga noqday in loo qoro dadka in loo qoro ama loo qabto waxa ay ku hadlayaan macnaha asxaabtu bil aadan bay haayeen cilmiga saasay u baran jireen kama xishoon jirin laakiin maanta maaha in dadku ay cilmiga ka xishoodaan maxaa yeelay asxaabtii baa sidaa oo nabiga sallallahu alayhi wasallam wax kasta weydiinaya marka waxa la doonayaa in adiguna aad cilmiga baratid waxa ugu yar in aad baratid hadii aan garanay nabiga sallallahu alayhi wasallam wuu u jawaabay wuxuu yiri oo maxaa ugu rida naarta madax ama waji ugu rida naarta waji illa hasaidu alsinatihim illa waxay ku soo koosteen carabiyaasha maahane almuhim wanaag in lagu hadlo oo khayr lagu hadlo oo carabku qofku ilaaliyo waxa weeye waxa qofka amalkiisa wanaagsan u kaydinaya maxaa yeelay qofku haduu amal wanaagsan sameeyo oo salaadii iyo soomkii iyo xajkii iyo sakadii oo waxyaalihii wanaagsan uu sameeyo qiraa'atul qur'aan hadana laakiin carabkiisa uu hanti waayo oo dadka wax ka sheego waxa ogaataa maalinta yawmal qiyaame in amalkiisa la guranayo waliba ka wax sheegitaanka dhabta ee qofku u nooleyn ilaa uu dad inuu caayo oo wax ka sheego maahane qofkaas oo kale maalinta yawmal qiyaame xasanaadkiisii oo dhan waa la guranayaa waxa weeye salaadiisii wa qiyaamul leylkiisii soontiisii oo dhan waxa qaadanaya dadku wax ka sheegi jiray markaana carabku wuxuu ku hantiyeysiinayaa amalkii wanaagsan soo qabatay in aad macnaha hantidid ayuu ka dhigaya ama in aad weydid amalkii على كل حال وصوص وسود وكسو تبعضي لكن ملال هاي هدي عرب كيلا لسيد هدي حمانتا iyo dadka dhibaatadooda iska ilaalisid waxa weeye
camalkii wanaagsanaa waad leedahay. ونبي صلى الله عليه وسلم أصحابته ويديه من المفلس؟ من المفلس؟ مفلس كوا محي مفلس كوا حيدهن الذي لا مال له ولا درهم وحيدهن وقفك أن درهم يمال لهين أي دهن باب المفلس مركب فقه قال لقنا يو حديث كاس ولا سوقاته صلا سوقاته وينوشي إن شاء الله تعالى. المهم وحيدهن إن حاول يقف أن درهم يدينار لهين أي دهن wuxuu yiri hadaba muflisku waxa weeye qof maalinta yawmal qiyaamah amalo waaweyn ayuu la imanayaa ajar weyn ayuu la imanayaa oo ajar buuraleeg ayuu la imanayaa hadhowtana waqad shatama hada wa daraba hada wa hada fa'ala hada kan wuu dhibay kan wuu dirbaxay kan wuu caayay kan wuu dulmiyay kan wuxuu ku sameeyay hadhowba waxay wixii oo dhan baa imanaya waxay ka urursanayaan amalkiisii wanaagsan. al-muflis hada markaana ama waa inaa muflis noqoto oo amalkii wanaagsana aad soo shaqaysatay in macnaha ay dadku qayb haystaan oo ay dadka u qaybisid oo ay dadku qaataan, ama in aadan muflis noqono de amalkaaga wanaagsana aad u lahaatid. marka carabku wuxuu ka mid yahay waxyaalaha ku haysiinaya in amalka wanaagsan aad adigu lahaato. carabka hadii ay wax wanaagsan ku jiraayid amalka wanaagsan adiga iska leh waxa weey waa fadli dhameystiran qofkii hadal wanaagsan uu ku hadlayo dadkiina uu dhibayn dadka xuquuqdooda oo iska ilaalinayo haddana uu shanta salaadood iyo quraankiisa iyo soonkiisa uu ka adag yahay waxa weeye waa xasanaad dhameystiran weeye. laakiin samaaha inuu cibaadooyinka iska wato markuu mujtamaca u yimaadana uu meel alaala meel laga fadhiisto lilaayahay. markana almuhim waxa weeye muflis baa tahay oo muflisku waxa weeye amal wanaagsan buu haystaa عمل وناكسن هو هيستا أو فقهاء وحيد هين أو وكان عمل كوناكسن هيستا قف كمفلس كه عمل وناكسن وليه عمل وناكسن وليه أو ما أنت يوم القيامة وإيمانيا لكن يسقم يوليه عمل كوناكسن مايا عمل كوناكسن يسقم لها دad baa iska leh dad ayaa iska leh marka loo eego waxa dadku ay ku leeyihiin maalinta yawmal qiyaamah deymaha ay ku leeyihiin qofka iyo hantidiisa maxaa badan deymaha lagu leeyahay ayaa badan deymaha lagu leeyahay baa badanoo isaga marka loo eego hantiyo ma laha maxaa yeelay waa tan amalkiisa laga qaaday oo waa laga leexiyay. saasoo kale muflis fi dunya qofkii hanti weyn haduu lahaa ama hanti haduu lahaa dadka deymaha ay ku lahaayeen ayaa waxay ka badan yihiin hantidiisa deymaha dadka badanba. marka hanti maxaa leedahay hanti muflis fi dunya qofka mufliska ee qofka intay diyuun kathira deymo far badan ee isku ururaan hadhowtana deymihiisii la dhaho deymihiisii ay ka bataan lacagtii uu isagu lahaa. tusaalahaan waxaa leedahay $1,000 baa leedahay $1,000 baa leedahay taajib baa markaana tahay $1,000 markaad leedahay dadkuna waxay ku leeyihiin deyn waxaa lagu leeyahay $7,000. المهم ayar waa laga soo qaadaya waxa lagu leeyahay wax kastaba ka badan marka waxa ma haysid bay ka dhigan tahay. saas oo kale maalinta yawmal qiyaamah de marka soo istaagtid ayaa amalka iska sheeganaysaa muflis baa tahay de waxan ma belihidba maxaa yeelay deynta iyo waxa lagu leeyahay ayaa ka badan oo dhawaan baa lagu imanaya laga qaadaya waxan adiguna eber soo istaagaysaa. marka almuhim halkaas iska soo shabahan ama halkaas ay iska soo galaan ay fuqaadu dhaha marka loo eego deynta lagu leeyahay حومتي مفلس باتا. مركانا عبد الله بن مسعود وحجري والذي لا إله غيره إله سبحانه وتعالى بان كدارتي إله كليه جري إله مهانة إله كليه جري أن إله كليه جري إساق مهانة ما على الأرض شيء لكم مسكنا شيء وقبع هبدا حريتان كيسا عربك مهانة حدي شيء وحبسك لينتك عبدو عربكو وإنه حبسك اللي أنت كعبه وإن حبسك لكية عربك حبسك يسوي حوي وإن كأمستد حمانته وناك أنا كهذا شيء وحوي وناقيسا يحبسك يسوي صدا مركا وحلدون يا إن عاد حمانته سكيلا لسيد وآخرك كهذا شيء وعاد وناك كهذا شيء. لقمان ابن حكيم يقول لي ولي ومقاومين أمسنان لكن هذا لو إنه قومي أمسنانتو وحوي أمسنانتو
waa khayr badan baa ku jira. sababta ah waxyaalaha adduunyada haddii aad ka aamusto oo hadhow ma soo xasuusanaysid oo ma dhahasid niyo haddii aan ka sheekeynaa shayga adduunyada shay adduunya oo ay dadku kugu jeclaanayaan macnaha caqligaaga iyo macnaha wanaagaaga markay ogaadaan ee dadku ku jeclaanayaan aa fadli adduunya helisid haddii aad ka aamustid fadliga aakhiro lagama sheekeynayo fadliga aakhiro isagu waa qooma midhano dee adduunka waad soo qoomeynaysaa waxaad dhahaysaa haddii aad camal wanaagsan samayn lahayd ama haddaad wax wanaagsan ku hadli lahayd laakiin dunyawi wax adduunyaa haddii aad ka aamustid hadhow markaad soo xasuustid dhihi maysid waxaa haddii aan anigu hadeer maalintaa ka jawaabi lahaa oo maalintaa aan sheegi lahaa waan ku liibaani lahaa ma soo xasuusanaysid. almuhim waxaa weeye in aad wanaaga ku hadashid inaad khayrka ku hadashid laakiin wuxuu yidhi uma qoomeen aamusnaan uma qoomeen laakiin hadal waan ka qoomeeyey oo meel fadhiya wax xun baan ka eri wax bilaa macnaha aan lagu hadli karin wax bilaa caqliya wax qofka moogtahay lagu maagayo qooma ku jirta hadalka. ibraahim annakhayi cani saxaabad ku sheekeynaya saxaabadu ka sheekeynaya wuxuu leeyahay كانوا يجلسون فأطولهم سكوتا أفضلهم في أنفسهم ويفرسين جرين أصحاب رضوان الله عليهم dadka fadliga badan markay isla fadhiistaan iyaga dhexdeeda ayaa la sheegaya laakiin markay dadka la fadhiistaan oo ay dadka khayrka u sheegayaan inay khayr ku hadlaan al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar waa loo baahan yahay oo dadka cilmiga in loo bandhigo oo wanaag loo sheego oo khayrka loo sheego waa loo baahan yahay laakiin waxa laga sheekeenaya markay iyagu isla fadhiyaan ayaa wuxuu leeyahay markay isla fadhiyaan ka ugu aamusnaan dheer ayaa ugu fadli badan agtooda maxay qofka aamusnaantiisu diintiisa ayay ka turjumaysaa oo qofka akhlaaq badan ayaa ka soo daahiraysa qofka hadduu iska aamuso oo si degan oo wanaagsan u fadhiisto oo qofka hadalkiisa sugo. almuhim waxa weeye aamusnaanta in lagu dadaalo oo khayrka in macnaha lagu hadlo wanaagana xumaantana laga aamuso wanaagana lagu hadlo in lagu dadaalo taas ayay ku dhismaysaa oo qofkii khayr buu ka helayaa oo maalinta yawmal qiyaame waxay hantisinaysaa hanti ka dhigaysaa ama qof uu leeyahay camalkaaga wanaagsan inaad adigu qaatid inaad adigu maamulatid. waxaan kusoo gabagabeynayaa insha allahu tacaala laba shay oo muhiim ah. waa nin shaacira wuxuu yidhi idaa nadaqta asafiiha falaa tujibhu hadduu qofka safiihiga ee bilaa caqliga macnaha qofka hadalka khaldan intaa ku hadlee macnaha dadka iska maagmaaga ee dhicitaanka fara badan ayaa laga hadlayaa qofka safiihiga hadduu uu hadlo ha u jawaabi fa khayru min ijaabatihi sukuut inaad u jawaabtid iyo inaad ka aamustid waxaa ka fadli badan inaad ka aamustid oo inaad u jawaabtid inaad ka aamustid ayaa ka fadli badan inaad ka aamustid ayaa ka wacan qofka safiihiga maxaa dadku waa saddex ama waa qof ka hooseeya ka darajo sare hooseeya ama waa qof kumila mid ah ama waa qof ka darajo sareeya qof ka darajo sareeya inaad maabtid oo aad macnaha hadal ku badisid waxa way waliga gaari maysid sagaga aamus qof kula mid ana hadii xumaan aad ku dhahdid ama xumaan uu ku dhaho almuhim macnaha ixtiraam oo uu aqli celi oo waxa ku tiraada deeniyo xishood oo u cafi wadana uu cafi وعفنت وشيء مهم قفك إسقى ولبا أنت وقع في سد ولبا إسقى وقع عقل على سد وترادين وخلت كذا وواني سد ولبا تاسع كسي وعن مركع في سد حتى وقع علي وإلهي سبحانه وتعالى حسوسي وأخلاقه ونفسه حسوسي أو معناها حاسين لفتك أو حاسين قفك لو وحى على قلق لا لكن وعلي وحقت هذا وحى إسكده قفك لهلا آدم أنا ما أكون حياة ولا الكيوان هاي لكن قفك لو حلقة وإن لا قلنتو من حيرانا أو نعسى saasoo kale qisaa jirtay oo dadkii xilmiga badnaa dulqaadka badnaa ka mid ah ayaa nin baa u yimi markuu u yimi mid nacasade mid dadkii nacasyada ahaayee ma garanaysaa iska bila caqliga ahaa baa intuu u yimi iska axmaq baa bahal ribaaxa intuu qaaday buu halka quuftay dhamanka kii dulqaadka badnaa ee dadkii magaca lahaa ah saasuu intuu u eegay ayaa wuxuu ku yiri kii dhirbaxada ku dhuftay ayaa wuxuu ku yiri soo hebel mati wasakhiyo soo hebel mati saakii dulqaadka badnaaye dhirbaxada lagu dhuftay baa wuxuu yiri may aniga ma ahe waa kaas halka taagan
kaas halkaa taagan weeye. wuu tegey kii halkaa taagnaa buu intuu u yimi buu bahal dharbaaxa ka jaray oo xanuunkuna siyoo kale ah mabsa intuu qaatay isagoo aan waxba weydiinba oo halkan seef ka soo qaatay buu gacanta ka jaray gacantuu ka jaray. hadhow baa lagu yiri ninkii dulqaadka badnaa niyow maxaa ninka saa u gashay siino ninka caqligiisa xun iyo nacasnimadiisa dishay anigu ma dilin buu yiri. maxaa yeelay haddii aan khalad leeyahay almuhim uu ii yimaado ii weydiiyo muxuu dharbaaxada igu dhufanayaa buu yiri. dharbaaxada muxuu igu dhufanayaa intuu u yimaado mii weydiiyo oo igu dhaho waxaas maadaa sameeyay anigu waxaa ma sameyn buu waxba isku mooyay laakiin dharbaaxa ka jar maxay tahay anoo nin weyn oo dharbaaxa ila soo aadaya ana dee dadkii axmaqiinta aan dulqaad iyo waxaa lahayn ayaan u geeyey. macnaha qofkan adigu u nax oo dulqaad u samee kawdhi cafin iyo waanana ugu dar. laakiin dadka dulqaadka badan ee maskaxda badan marka laga sheekeynayo ayaa qisadan soo qaataa. almuhim sakattu can safiihi fadanna annii cayitu can iljawaabi wamaa cayitu waxaan isaga aamusay kii safiihiga ayaan isagaga aamusay. hadhow baa wuxuu mooday inaan su-aashii ka caajisay kamana caajisin. macnaha qofka safiihiga ama qofka nacaska waa qofka markuu xumaan uu sameeyo aad wanaag ugu gudid hadhow isxasuusan waaya ee dhihi waaya niyo ninkanu wanaag buu kula imanaya adna xumaan baa uga imanaysaa iska daa. macnaha qofka caqli xumo meel uu ka gaadho dadka qaar axmaqiin safiih min qofku xumoodaa moogtahay in xitaa uu sharaf iyo wanaag uu ka helayo. sharaf iyo wanaag kama helisid. qofka dulqaadka badan ee wanaagsan markuu runta kuu sheego ama uu kuu samro oo ceebtaada asturo oo si wanaagsan kula dhaqmo adna aad xumaan kula dhaqmaysid ha is-ihin qofkanu waa nacaso inuu ila dagaalamo ama inuu wax ugu sameeyo ayuu ka caajisayey bal isagaga sii wad isaga barbaro la. haddii qofka kaa xishooda ee ku ixtiraama ee wanaag kugu bedelaa haddii aad la soo aadid sanka ogow isna sharaf baa u kordhaysa adna meel xun baa gelaysa. sidaa u socotid meel xun ayaa ku socotaayo waddo xun ayaa geli doontaa kawdhi oo ceeb weyn kuu soo jiidi doonta. waddo xun oo ceeb weyn kuu jiida ayaa ku dhacaysa oo aanan ka soo laaban karin aday ku taalaa. marka ninkan wuxuu ku leeyahay qofkii safiihiga markaan isaga aamusay ayaa wuxuu mooday inaan jawaabtii ka caajisay laakiin jawaabtii kamaan caajisine anaa isaga aamusay ee waan u hayaa jawaab. markaana almuhim waxaynu kusoo koobanaa insha allahu tacaala shayga ugu dambeeya ayaanu kusoo koobanaa waxa ugu dambeeya. haddii waa yahay waa la aamusay shiikhow waa la aamusay maxaanu sameynaa. waxaa weeye maxamed ibnu siiriin ayaa wuxuu yidhi kunaa fi beyt calqama ibnu qays gurigiisa ayaanu joognay waa dadkii wanaagsanaa way is aruursadeen meel bay wada joogeen waa dad culimada iyo dadka ilaahay ku xidhana way israacaan qofba qofkiisa wuu raacaa shimbirkiisa ayuu la duulaa ayaa la dhihi jiray. fadakhala calaynaa rabiic ibnu khaytham hadhow tana ninkii wanaagsanaa ee rabiic ibnu khaytham ayaa noogu yimi meeshii wuuna noo yimi wuxuu yidhi aqilu lkalaam ilaa min 9 waxaad yaraysaan hadalka 7 maahaane. hadalkaas ka yareeya 7 waxyaabood maahaane. 1 subxaan allah walxamdulilah walaa ilaaha ila allah wallahu akbar. intaas maahaane waxyaalaha kale hadal ku yareeya inaad subxaan allah walxamdulilah walaa ilaaha ila allah wallahu akbar aad dhahdaan hadalka ku badiya. maxaa yeelay qofkii digriga ku mashquula waxyaalaha kale uu ka mashquulaa. hadaad doonaysid carabka inaad wax wanaagsan ku xidhid wax wanaagsan ku mashquuli wax wanaagsan markaad ku mashquulshidna waxyaalaha kale ee xunxun ee kasoo horjeeda wuu ka mashquulayaayo uma dhowaanayo. wa qiraa'atu lqur'aan qiraa'ada qur'aankana ha yareenin ee badiya. wa amru bilmacruuf wanahyu can lmunkar inaan wanaagga amartid xumaantana aa ummadda ka reebtid iyadana badi. waxaa weeye ومسألة الخير إن إلهي سبحانه وتعالى خير كويديس إلهي سبحانه وتعالى خير كويديسو يدنا بدي
واستجارته من الشر إن شرك إلهي سبحانه وتعالى كم ينكشد يدنا بدي sidaas ayay dadka wanaagsan isugu nasteexanayaan oo ay khayrka isugu sheegayaan maxaa yeelay qof wanaagsan haddii aad ku xubnaatid waxa weeye waa khayr ayaad ka faa'iidaysaa weliba sir baa jirto maxaa yeelay qofku qofkiisa wuu ku daydaa soo maha wiilku saaxiibkii wuu ku dayanayaa aabuhu wiilka yar aabihii buu ku dayanayaa gabadhu hooyadeed bay ku dayanaysaa xaasku ama xaasku ninkeeda ama gabadhu ninkeeda ama xaaskeeda ayay ku dayanaysaa markaana haddii aa aabba tahay wiilkaaga yar wuu kuu dayanayaa wiilka yar macnaha waa doctors haddii aa hooyo tahay sidaas oo kale haddii aa nin tahay ama gabadh tahay saaxiib wacan yeelo maxaa leeyahay fursad chance qaaliya kuu jira sababtaa saaxiibka wacan khayrka ayuu kuu sheegayaa wax wacan ayuu kuu sameynayaa haddii aa nin tahayna gabadh wacan gurso ama haddii aa gabadh tahay nin wacan gurso si difaac agtiisa aad uga heshid oo khayrkii iyo wanaaggii uu kugu amro ama kuu booriyo adoo macnaha dhinaca ka xigsanaya dhinacaas ka dooro markaan qof kasta waxaa la doonayaa qof wanaagsan inuu la xidhnaado qof wanaagsan la saaxiib insha allahu tacaala khayrka iyo wanaagga kuu sheega intaas ayaynu kusoo koobanaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu